falaantigii dheemanka ah ee badbaadiyay nolosheeda. Michalina Lewandowski waxay noqotay dhibano nolosha lagu duugay oo ka sheekaysay maalintii ugu adkayd nolosheeda. Sheeko cabsi badan oo ka kooban 2 marxaladood ayay uga warrantay ciidanka booliska iyo garsooraha maxkamadda. Marka koowaad, bistoolad ah nooca laga rido rasaasta korontada ama elektriga ayaa lagu suuxiyey, waxaana lagu riday naxashka alwaaxa ee dadka lagu aaso. Ugu dambaynna iyada oo nool ayaa lagu duugay god madow. Dhibaatadaas waxa uu geystay saaxiibkeed Marcin Kasperzak oo isku dayay inuu nolosha u dhaafiyo habka ugu xun ee suurtagalka ah. Laakiin Michalina oo ahayd 20 jir go'aan adag oo aan isdhiibin, waxa uu suurta gashay inay nafteeda badbaadiso iyada oo kaashanaysa faraantii uu hay'adda ugu keenay ninka nolosha ku duugay ee Marcin Kasperzak. Ayay bannaanka uga soo baxday qabri looga qoday kaymaha dhirta badan ee magaalada Huddersfield. Haddaba muxuu noqon karaa nacaybka horseeday in nolosha lagu duugo haweeneydan? Sidee ayaynu uga soo badbaaday kartoonka madow ee xabaasha lagu duugay? Su'aalahan iyo kuwa kaleba jawaabahooda waxaad ka fiirsan doontaa muuqaalkeena maanta. Haddii ay tahay markii koowaad ee aad soo booqato Go'aanso Channel, fadlan taabo subscribe, muuqaalkana like saar. Aan u soo laabano sheekadeenna. Michalina iyo Kasperzak inta aysan wada jir uga safrin dalka UK, waxay isku barteen waddankooda Poland. Sanadku markuu ahaa 2005, 2 sano kadib 2007 ayay isku guursadeen carriga Ingiriiska. Bartamaha sanadka 2008 waxaa dunyada ku soo biiray cunugooda koowaad ee Jacob. Nasiib darro, cunugani ma badbaadin. Hoos u dhici ku yimid xiriirkooda oo sababsaday khilaaf soo kala dhex galay lamaanahan. Inkasta oo ay kala guureen, haddana Michalina iskama bixin faraantii uu hadiyadda u keenay Kasperzak, mana aysan ogeyn in faraantigani maalmaha ka mid ah uu badbaadin doono nolosheeda. Kasperzak waxa uu ahaa nin u dhashay dalka Poland oo ku nool waddanka Ingiriiska. Maxkamad ku taala dalkaas ayaa ku xukuntay 20 sano oo xariga kadib markii lagu eedeeyay isku day dil iyo farsamaynta walxaha qarxa. Waxa uu qaatay racfaan isaga oo dalbaday in xukunka dib loo eego. Jawaabta maxkamadda ayuuna sugayay maalintaas. Nasiib darro, waxba lagama bedelin xukunkii hore oo ahaa 20 sano oo xariga. Inkasta oo uu ku xukunaa dambiye hore, haddana bannaanka ayuu joogay oo garyaqaankiisa ayaa ku hawlanaa burinta dacwadda loo haysto ama yaraynta sanadaha ciqaabta. Maalintaas waxa uu ballan la lahaa Michalina oo ah hooyada cunugiisa 4 sano jirka ah. Hal mar ayuuna la soo baxay bistoolad elektriga ah oo ah nooca ciidamadu ku suuxiyaan qofka ay qabanayaan. Koronto dhan 300,000 voltage ayaa halkii mar laga ridaa bistooladan. Inkasta oo ay dhaqdhaqaaqa ka joojinayso qofka loo adeegsado, haddana bistooladani dareenka iyo caqliga ma kahayn karto. Michalinana toos ay u dareensanayd in gacmaha iyo lugaha laga xirxirayo, isla markaasna lagu dhex riday kartoon ama alwaax adag. Ilaa xabaasha markii ciidda lagu aasayay, intaba caqligeeda iyo dareenkeeda ayay qabtay. Si toos ayayna u maqlaysay dhawaaqa dhagaxa iyo ciidda dusha kaga soo dhacaya kartoonka ay ku jirto, balse awood ma aysan lahayn. Waxay garwaaqsatay in nolosheeda ay ka harsan yihiin ilbiriqsiyo kooban. Shaki la'aan inay dhimanayso ayay aamintay. Xilli ay ka warramaysay xaaladda ay soo martay ayay tidhi, madowga aad ayuu u darnaa, kartoonkuna ciriiri ayuu ahaa, jirkaygana diriqi ayaa lagu geliyey. Waxaan yareeyay neefta aan qaadanayo si aysan iga dhammaan hawada kooban ee ku jirta kartoonka gudihiisa. Waxaan isku dayay inaan dhaqdhaqaaq samayn inta aan ka maqlayo guuxa gaariga iyo dhaqaaqiisaba. Haddii aan xarakaad sameeyo inta uu ag joogo, waxaan hubaa inuu nafta degdeg ii dhaafin doono. Ma aanan maqlin guuxa gaarigiisa, laakiin waxaan sugay muddo kooban. Waxaana ii caddaatay inuusan i kor joogin. Inkasta oo ay madaxayga ku wareegayeen fikrado madow badan oo quus iyo rajabeel ah, haddana waxaan qaatay go'aan adag oo ah inaan si unuga baxo xabaasha laygu duugay. Waxaana bilaabay inaan ka fikiro habkii aan iskaga goyn lahaa koolada lugaha iyo gacmaha laygaga xidhay. Iima fududa inaan isdhaqaajiyo kartoonka ciriiriga aan ku jiro awgii. Shayga keliya ee birta aan heli karayeyna waxa uu ahaa faraantiga gacanteeda ku jira. Nasiib wanaag waxa uu iga caawiyey goynta koolada gacmaha la iga xidhay. Intaas kadib waxa ay bilowday inay meel ka dawliso kartoonka ay ku dhex jirto. Ugu dambaynna waxay ku guulaysatay inay kala jeexdo. Laakiin ciid fara badan ayaa madaxa iyo wejiga kaga soo fakatay. In ay neefsato ayaana ku adkaatay. Indhaha ayay isku qabsatay, waxayna xooggeeda isugu geysay inay kor u qaaddo xabaasha iyadoo adeegsanaysa gacmaheeda oo keliya. Nasiib wanaag, ciiddu waxay ahayd mid aan adkayn oo daqiiqado ka hor ayaa dusha lagaga shubay godka. Isbeyska bannaan ee ka samaysmay kartoonka la kala jeexay ayaa isna ka qayb qaatay inay qayb ka mid ciidda ay hoos u degto. Inkasta oo ay ku jirtay xaalad aad u qallafsan, waxay muujisay adkaysi xad dhaaf ah, waxayna bixisay dadaalkii uu naftiisa ku badbaadin lahaa qof u dhexeeya nolol iyo geeri. Ugu dambaynna waxay madaxa kala soo baxday qabriga.
hawo ciid iyo boor leh ayay qaadatay walow ay qufacyo indhacasaad kala kulantay haddana waxay dareemaysay farxad aan la soo koobi karin welina indhaha si fiican wax uguma arki karto oo wejigeeda iyo timaheedaba waxa buux dhaafiyey ciiddii lagu aasay guurguurasho ayay kaga baxday xabaasha waxaana u suurto gashay inay waxoogaa indhaha kala qaado oo ay bannaanka iyo geedaha kala galato fallaaraha cadceedda ayaa si weyn u caawiyey oo haddii xilligu habeen yahay xaaladdeedu sidan way ka xumaan lahayd weli ma laha awood ay ku socoto waxayse isku qasabtay inay tallaabo u dhaqaajiso dhinaca waddada gacmaha iyo ciddiyaha dhiiga ayaa ka socda halka wejiga iyo timaha ay weli ciidi ka buuxdo qofka ay gacanta u taagtaana waxa uu moodayaa reer aakhiraad ugu dambayn mid ka mid a baabuurta waddada maraysa ayaa u joogsaday waxaana loo wacay nambarka emerjensiga 15 daqiiqo kadibna waxaa soo gaadhay ciidanka booliska oo cisbitaalka u diray kadib markii ay ka qaateen warbixin kooban oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen waxay aadeen goobtii ay u tilmaantay waxayna ugu tageen xabaal cusub iyo kartoon kala jeexan Kazim Razak isagu waxba kalama socdo dhacdooyinkii ka dambeeyey mana oga in boolisku xaggiisa u soo socdo ugu dambayn Kazim Razak waa la soo qabtay maxkamadda ayaana la hor keenay kiiska ama dembiga lagu soo eedeeyeyna waa isku day dil waxaana lagu xukumay 20 sano oo xariga haddaba waxaa jira wiil 15 sano jir ah oo la fudeeyey fulinta hawsha maadaama uusan qaangaar ahayn marka la eego sharciga UK waxaa lagu xukumay 4 sano oo dhaqan celin ah waraysi ay bixisay Makalina ayay kaga warrantay sida ay wax u dhaceen maalinta ay khatarta weyn gashay waxay tidhi maalin xada ayaanu ballannay qorshuhuna waxa uu ahaa inaan ka heshino khilaafkana dhex yaala hooyadii ayaana kaga tegay wiilkayga Jacob oo 4 sano jir ahaa iyadoo dhexda kaga jirta diyaar garowgeeda ayay maqashay codka Kazim Razak oo la sheekaysanaya saaxiibkiisa Boris oo hadda ay yarjid xun ku socda salaan kadib Kazim Razak waxa uu amaanay labiska Makalina isaga oo muujinaya dhoolla caddayn dahsoon oo xambaarsan qorshe aan qurux badnayn isla markiiba waxa uu iska soo jaray bistoolad elektriga ah oo gami karta koronto xaddigeedu gaarayo 300,000 oo voltage Makalina oo dhanka muraayadda u jeeda ayuu qadaadka kaga qabtay hal mar ayayna dareentay koronto xooggan oo saaqday jirkeeda dhulka ayayna ku dhacday intaas kadib Kazim Razak ayaa gacmaha qabtay isagoo isku day inuu xirxiro waxayna bilowday inay iska difaacdo balse saaxiibkiis Boris ayaa isna ka qayb qaatay qabashada iyo xirxiridda Makalina iska caabinta ay samaysay darteed waxay meelo badan oo jirkeeda ka mid ah kaga qabteen biskoolada korontada waxayna noqotay qof aan meydka waxba dhaamin intaas kadib bannaanka ay uga baxeen waxayna soo noqdeen iyaga oo wata kartoon dheer oo hal qof la gelin karo bilowgii hore waxay moodaysay inay cabsi gelinayaan balse gadaal ayay uga caddaatay in qorshahoodu yahay inay nolosha dhaafiyaan dareenkeedu waxa uu ahaa mid jooga balse awoodda ayaa ka maqnayd waxay ku rideen kartoonkii ay soo diyaarsadeen qaybta dambe ee gaariga ayayna ku tuureen iyagoo u ambabaxay bannaanka magaalada waxaan xasuustaa inay meel kayn ah uga leexdeen jidka laamiga kartoonka aan ku jiro ayay gaariga ka soo dejiyeen waxayna bilaabeen inay qodaan xabaal aan arkayn awood ma lihi oo xubin jirkayga ka mid ah ma dhaqaaqi karto ayay tidhi Makalina Lewandowski waxaan maqlayay Boris oo u sheegaya Kazim Razak inuu aad ii necab yahay waxa uu ahaa wiil yar oo aanan garanayn dhibaatada aan u geystay godka ayay igu rideen waxayna bilaabeen inay ciida dusha iga shubaan shanqarta quruuruxa iyo ciida dusha kaga dhacaysa kartoonka ayaan maqlayaa aad ayay ugu faraxday xukunka maxkamadda aad ayayna u weyneyd cabsida ay ka qabto inuu xabsiga ka soo baxo oo uu mar labaad isku dayo inuu dilo ama se uu lacag ku siiyo dilaa nolosha dhaafiya sidaa darteed waxay iskaga gurtay magaaladii ay ku noolayd in badan oo ka mid a dhibaatada ay soo martay Makalina Lewandowski waxay u eegyihiin dhacdooyinka filimka Kelbel oo atrashada Black Mamba ninkeedu uu ku duubay sanduuq alwaaxa ugu dambayntiina ay si dhib leh uga badbaaday farqiga u dhaxeeya labada sheeko ayaa kala ah in Makalina ay isku badbaadisay faraanti dheeman ah oo gacanta ugu jiray halka Black Mamba ay ku badbaaday tababarkii ay ka qaadatay Guru 2 sheekada filimka Kelbel waa mid mala awaal ah oo soo saaruhu alifay halka sheekada Makalina ay tahay sheeko dhab ah oo ka diiwaan gashan arkiifyada booliska iyo maxkamadda labadaba